madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo goor dhaweyd la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay in madaxweyne Vladimir Putin iyo dowladdiisa goor dhow lagula xisaabtami doono falalka gaboodfalka ay ka geysanayaan dalka Ukraine. Waxa uu sheegay maalmihii la soo dhaafay in ciidamada Ruushku ay duqeynayeen goobo aan loogu talagelin in la duqeeyo marka ay jirto xaalad dagaal. Waxa uu sheegay in ciidamada Ruushku ay duqeynayeen maalmihii la soo dhaafay cusbitaallo, iskoolo iyo goobo ka caagan in la duqeeyo xilliyada dagaalka. Waxa uu sheegay dowladda Mareykanka, qaramada midoobay iyo saaxiibadooda kale oo nabadda jecel inay ku hawlan yihiin sidii ay u caawin lahaayeen dalka Ukraine. Waxa uu madaxweyne Biden sheegay inta aanu dagaalku bilaabin in dowladda Mareykanku ay ugu deeqday 650 milyan dalka Ukraine, taasoo ay ku gateen qalab kala duwan oo military oo ay ka mid yihiin madaafiicda taangiyada lagu gubo iyo satellite-ka. Waxa kale oo uu sheegay in xilli dambe 300 milyan oo kale deeq ahaan loo siiyay. Toddobaadkan gudihiisana waxa uu madaxweynuhu sheegay in dowladda Mareykanku ay ugu deeqday dalka Ukraine $1 bilyan, taas oo uu markii hore 200 milyan dowladda la siiyay, kadibna maalinimadii shalay uu ku dhawaaqay in uu siin doono 800 milyan. Waxa kale oo madaxweyne Biden uu sheegay in toddobaadkan uu u safri doono qaaradda Yurub, halkaas uu kula kulmi doono madaxda midowga Yurub iyo NATO. Waxa uu sheegay inta uu ku sugan yahay qaaradda Yurub in madaxda midowga Yurub iyo NATO ay ka wada hadli doonaan sidii Ruushka loo saari lahaa cunaqabateyno cusub. Waxa uu madaxweyne Biden sheegay xilligan oo lagu jiro qarnigii 21aad inay dowlad kale weerar ku qaado iyadoo aan haysan wax qiil ah. Waxa uu sheegay gargaarada kala duwan ee dowladda Mareykanku ay tareen dowladda Ukraine in ay ku gaareen guulo kala duwan, taasoo ilaa iyo hadda ciidamada Ruushka u diiday inay qabsadaan magaalooyinka waaweyn sida magaalada Kiev. Waxa uu sheegay in ciidamada Ukraine ay khasaarooyin ba'an u geysteen ciidamada Ruushku ilaa iyo haddana ay difaacayaan dalkooda. daawade fadlan ku xirnow kanaalka, subscribe saar, gambaleelkana furo. Mahadsanid.